waxaana wanaagsan asxaabteeda qaali waa markale barnaamijyadeena Excelka maanta waxaan tusayaa sida loo shaqeeyo sida loo shaqeeyo maalmaha attendance-ga sida loo qaado in halkan si sahlan ay ku tusaa markaas la socdo wanaagsan markaas imika tusaale magacaantan iyaan shantii maalmood ee toddobaadka intii shaqeeyeen sidii uga shaqeyn lahayn Excel anagoo adeegsanayna ayaan halkan idinku tusi doonaa marka hore isniin baan ka bilaabaynaa Monday baan leenahay kadib sidaan aan u jiidaynaa markaan sidaa u jiidino isagaa noo shaqeynaya ayaamaha inta kale sidaasaan u jiidaynaa isagaa noo shaqeynaya ilaa iyo axaduu noo shaqeynaya ka dhigan tahay markaas waxaan leenahay sidaan aan u wada dooranaynaa marka hore markaan sidaa u wada doorano kadib halkaasaan imanaynaa insertigaasaan imanaynaa kadib waxaan imanaynaa checkboxga click leenahay kadib halkan ayaan attendance baan ku qoranaa mid walba intuu yimiday uu kasoo xaadiray ayaan halkan ku qoranaynaa attendance baan leenahay kadib waxaan halkan aan imanaynaa equal to yaan leenahay count if baan leenahay formulahaasaan isticmaalinaa count if yaan leenahay kadib sidaasaan laynka hore ayaan sidaa u wada dooranaynaa waxaan leenahay comma kadib true yaan qoraynaa enter ayaan leenahay intaan xidhno bracketka intaan xidhno ayaan enter leenahay waa ka formula halkaas ugu qoran yahay kadib waxaan leenahay iminka tusaale tick baan saaraynaa maalmihi tick markaan saaro halkaas true u bedelaya tick isniin u yimiday arbaca ma iman haddana talaada u yimid khamiis u yimid labadan maalmood maalmihii fasaxaba kasoo qaad markaa shantii maalmood 4 maalmood buu ka yimid bay ka dhigan tahay hoos baan usoo soconaynaa hoos baan usoo jiidanaynaa formula kadib sidaan jecelahay baan haddaba tigtigta markaanu saaro isagaa noo shaqeynaya maalmaha oo dhan isagaa noo shaqeynaya intaan maxaa la dhahaa markaan tig dhahnoba isagaa halkan noo shaqeynaya marka ugu dambeysa uu sidaa noogu wada shaqeeyo tusaale 2 maalin keliya kasoo galay baan odhano ninkana tigtaan u saar 3 maalmood buu yimid han dhahno maxaa la yidhahdaa halkan sidoo kale 4 maalmood ama shantiiba uu soo xaadiray baan odhan karaynaa tig baan wada saaraynaa shantii maalmoodba uu yimid baan odhan karaynaa kadib inta maalmood ay yimaadeen shaqaalahooda waad soo gelin karaysaa equal to baad leedahay saan baad leedihiin saan markaa dhahdiin saasaa soo gelinaysaa enter baad leedihiin 24 maalmood oo shaqo ay yimaadeen bay ka dhigantay marka maxaa la dhahaa average ahaan la isku celceliyay la isku geeyay waxaan maalaynaa asxaabteeda qaali inaad fahamteen markaas haddii wax su-aalaad ka qabteen barnaamijka aad soo weydiin karaysaan aad iyo aad baad mahadsantihiin goob walba aad joogtaan khayr ayaan idin rajaynaa dhammaantiin